بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخيارتها ودنا نقل صعطاي كسر دوادا وركة تلفزيون كقرن كجمهورية الصوماليلان وهذا هنو كليدي كيما ده استوديو قدحة تلفزيون كقرن كل هاي عاصمة هرقيسة وحنا وركة دل السعودية هدي الله أود لو قرادو أنا جو هردوان عيدي إسماعيل كيدا قضب ضيدا وركة الأقدر كرالله وحكم ده xubno kamida golaha wasiirada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xadhiga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay degmada Saylab Bari ee gobolka Hawd. wasiirka howlaha guud guriyeyntii gaadiidka Soomaaliland mudane Ali Xasan Maxamed Ali Mareexaan ayaa kormeer shaqo ku tagay wadada isku xidha degmooyinka Togwa Jaale iyo Kalabayd ee gobolka Gabiley. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdilaahi Ibrahim Habane ayaa dhagax dhigay birowga mashruuca waxbarashada barbaarinta ubadka oo lagu soo kordhiyay waxbarashadii ay dugsiyada hoose dhexe ee dawladda. wasiirka khayraadka biyaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa magaalada Laascaanood kulan ballaaran kula yeeshay guddiga midnimada iyo horumarinta gobolka Sool. magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxilna waxa aas loogu sameeyay 3 caruur ah oo badda Berbere ay leeqday iyadoo madaxda gobolka Saaxil ay tacsi u direen eheladii qaraabadii asxaabtii ay 3 caruur ah ay ka baxeen. daawadayaal kuwaas waa qodobadayda warka ugu doorka roon imikii haatan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. xubno kamida golaha wasiirada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xadhiga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay degmada Saylab Bari ee gobolka Hawd. socdaal ay waftigaasi ku marayeen deegaano ka tirsan gobolka Hawd. maxamed Jiciir aw Axmed ayaa warka looga soo diray magaalada Baligubadle xarunta gobolka Hawd. مسؤولين كترسن حكومة الصومال ay kamid yihiin wasiirada wasaaradaha madaxtooyada caafimaadka qorsheynta qaranka maaliyadda barasaabka gobolka Hawd ayaa maanta si wada jir xariga uga jaray mashaariic horumarineed oo xukuumadda Soomaaliland ka hirgelisay degmada Saylo oo ka tirsan gobolka Hawd. mashaariicdan xariga laga jaray ayaa iskugu jiray dhismayaal dhawaan laga hirgeliyay degmada Saylo kuwaas oo kala ahaa xarunta maamulka degmada Saylo maxkamadda degmada xarunta caafimaadka degmada Saylo. munaasabad kooban oo loo qabtay munaasabadan xariga jarista ayaa waxa ugu horeyn hadallo kala duwan ka jeediyay xildhibaan Oobsiye iyo wasiir dawlaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cabdi Daahir Camuud waxayna ku dheeraadeen qiimaha uu dhismahan u yeelan doono degmada Saylo iyo guud ahaanba gobolka Hawd. marinayna dhammaan wasiirada iyo madaxda sare iyo labada shirkadda labaadna waxa weeye Home Star ayadoo waxay dhistay MCH-ka waxaan ku soo gabagabeynayaa mahadnaqa waxa weeye waa madaxdii degmada ka tirsanaa ay horta u kaga dhameeyay waxa dhisantay maanta idinka hadda maxaa laga rabaa dado idinka waxa laga doonayaa inaad ku mahadcelisaan gacantiina inaad ku mahadcelisaan dawladda iyo xisbiga kulmiye inaad gacantiinaasi ay mahadnaq noqoto waxa la idin dhisay waxa iyaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Salebaan Axmed Ciise Xagla Toosiye iyo barasaabka gobolka Hawd Ibrahim Ali Xaaji Xasan waxayna ku dheeraadeen qiimaha ay degmada Saylo u yeelan doonaan dhismayaashan isla markaana waxa ay carabka ku adkeeyeen in ay door weyn ka ciyaari doonaan horumarka degmada Saylo mashaariicdan laga hirgeliyay. madaxda gobolka madaxda degmada shacabka raiisul sida sharafta iyo wanaagga ee ay noo soo dhaweeyeen waa ka mahadcelinayna. inta markaan ka gudbo waxa farxadii maanta in ka qayb noqdo furitaanka mashaariicdan kala gedisan ee ay fulisay xukuumadda oo madaxweynaha ka yahay mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo oo ah xukuumad waxqabad. madaxweyne Axmed Maxamuud Siilaanyo aad iyo aad aniga magacii gobolka iyo kiinta walaal kala maqal ku hadlaya waxaan leeyahay runtii gobolaadkaaga waad ka dhabaysay
sidoo kale munaasabadan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan, wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Cali Salaan Jirde Cali Shoombe, wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Axmed Nuur Cabdi Shaacir, gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Maroodi Jeex. munaasabadaasi waxaa soo gunaanaday wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi. maanta waxaan halkan u nimi wafdigayagan ballaaran inaannu xadhigga ka jarro mashaariicdan kala duwan ee isugu jira xanaanadii xaruntii xanaanada degmada Sayla, xaruntii maamulka degmada Sayla iyo maxkamaddii degmada. saddexdaa dhisme ee cusub inaannu xadhigga ka jarro. kale waxaa shahaada sharaf la guddoonsiiyay mas-uuliyiintii ka socotay xukuumadda Soomaaliland iyadoo lagu bogaadiyay waxqabadka muuqda ee ka qayb qaateen ee laga hirgeliyay degmada Maxamed Jiciiro Axmed iyo Axmed Maxamed Cawaale, TV-ga qaranka Soomaaliland, degmada Sayla. wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa kormeer shaqo ku tagay wadada isku xidha degmooyinka Togwajaale iyo Kalabeer ee gobolka Gabiley, isagoo u kurgelayay xaaladda jidkaasi uu ku sugan yahay, sida uu warkan Gabiley nooga soo diray wariyahayaga Nimcaan Deeg Ibraahim. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa maanta kormeer ballaaran ku tagay wadada isku xidha magaalada Wajaale iyo Kalabeer oo Soomaaliland u muhiim ah, isla markaasina isku xidha wadamada Itoobiya iyo Soomaaliland. halkaasoo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta soo indheeyay dib u dhis iyo dayactir lagu samayn doono wadadaasi oo ay dhawaan roob la xaadiyay khasaaro soo gaarsiiyeen. wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta Soomaaliland Mudane Cali Xasan Maxamed oo halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa ku nuuxnuuxsaday ujeedada iyo ahmiyadda ay wadadani leedahay, isagoo jawaab adagna ka bixiyay hadallo ka soo yeedhay xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley. Calvertskii buundooyinkii biyaha ayaa ku yar xabad qura meesha ku jirta. waa kan maareeyo inoo sheegay kulley laba qorshaan doonayaan inaan qabano oo mid waxa weeyaan hadda in garbihii dadku qaaday la soo celiyo waa qoys garooyinkii ay faafiidii wixii waa diyaar. hawshaas way naga gabagabeysaa dhowr xisho soo socota hadda. tan kalena waxa la sugayaa marka biyo yaraadaan oo imka hawsha lama geli karo. waa wadadanu waxa weeyaan wadooyinkii dhismay intii dawladda oo hogaamiya madaxweyne Siilaan yahay dad wax matarayaal oo wadooyinka dhex taagan oo intii saxaafad u yeedhaan ama mobile wax iskaga duuba dabeedna halkaa waxaa lagama qaban, halkaa kale waxaa lagama qaban, wax alla waxay ku taraan ma jirto. laakiin wax matarayaasha wadooyinka dhex buuqaya iyadoo la shaqeynayana haddii aan waxba tarayn wadooyinka buuqa kala dul dhaqaaqa qabanayana kuleena wadarta kulli shaqadana waa noo socotaa. waana dhamaystirnaa sidii loogu talagalay, waana dhamaystiri doonaa marka roob qaadana waa banaynaa. laakiin haddaan imika qodno oo meeshii biyuhu baxayeen u samayno baabuurta meel ay maraan mala dhiiqay galayaan. marka waxaan la sugaynaa marka roobku yar qaado inaan meeshii biyuhu ka baxayeen aan baybkii gelino haddii lahaydu si looga haysto dhibtaasi. sidoo kale halkaasi waxaa hadallo kooban ka jeediyay maayarka magaalada Gabiley Amiin Cumar Cabdi iyo sidoo kale barasaabka gobolka Gabiley Xamse Maxamed Cabdilaahi, maayarka degmada Togwajaale Cabdi Casiis Taleebaan iyo xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Faarax oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Gabiley oo dhamaantoodba soo dhaweeyay wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta howlaha shaqo oo ku joogo gobolkani Gabiley. fiican bay shaqadu u socotaa. wixii de kumeel gaadhay laga qaban karayna waa laga qabanaya mustaqbalka. runtii wixii uga qorshaysan yahay abaar baynu isugu imeynay baryahan bay dhibaatayna gaarsiisay. imikana nimcada ilaahay noo shubay iyo nusqaanteedii baynu isugu nimaadnaa, ama qoftaad qaaday ha noqdo ama wadagooday ha noqdo. intaaba waxa weeye de gurmaduun baynu ku jirnaa dawladda iyo dad ahaanba. aad baan ugu mahad celinayaa runtii. insha Allah tacaala waana dhamaan doontaa, hawshuna si fiican bay u socotaa. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waxqabadkiisii iyo hawshiisii wasiir ilaa heer degmo shaqadiisii iyo nidaamkiisii uu ku talagalay lagu shaqaynayo oo had iyo jeer ka warhaya dadkii soo doortay
iyo xukuumaddiisa uu hormoodka u yahay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo maareeyaha wadooyinka. Caandheeg Ibraahin, TV-ga qaranka Gabiley. wasiirka khayraadka biyaha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac oo maalmihii u dambeeyay socdaal shaqo ku joogay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa kulan ballaaran la yeeshay guddida horumarinta ee gobolka Sool sida uu warka nooga soo diray wariyaha wafdiga noola socda Cabdiraxmaan Muuse Cumar. wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland mudane Baashe Cali Jaamac ayaa kulan ballaaran oo nabadgelyada gobolka kor loogu qaadayo looguna diyaar garoobaya hawsha diiwaangelinta gobolkaasi la yeeshay guddida midnimada gobolka Sool. xogayaha guddigaasi Cabdilaahi ayaa kulankaasi faahfaahin ka bixiyay kana warramay waxyaabihii halkaasi lagaga wada hadlay. guddidaas ayaa saaka ay ku kulmeen wasiirka iyo xildhibaan koore waftigii uu hogaaminayay ee wasiirku iyagoo kaga wada hadlay nidaamka diiwaangelinta in loo diyaar garoobo howlaha soo socda loo diyaar garoobo ilaalinta nabadgelyada loo diyaar garoobo wax wada qabsiga Soomaaliland. wasiirku khudbad dheer ayuu halka nooga jeediyay. dhinaca kalena wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Baashe Cali Jaamac ayaa guddiga ku amaanay hawsha gobolka ay ka hayaan kana warbixiyay arrimaha ay ka wada hadleen ee ay sida uu imika xogayuu sheegay waxaan la kulmay guddidii gobolka Sool halkan laga asaasay dhawaan annaguna guddidii baanu aad ula shaqeey waxaan ka wada hadlay arrimaha uu xogayuu sheegay midnimada gudahooda nabadgelyada wax la qabsiga Soomaaliland u diyaar garowga diiwaangelinta oo waqtigii ina hayo arrimahaas oo dhan baan si wanaagsan isula falanqeynay meel fiicanna waxbaanu isla dhignay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa sida ay diyaarka u yihiin dad badan oo Hargeysa jooga rumaysnayn ama ogeyn oo ay oran jireen dadkaasu ma codaynaya ma codayn doono ma isdiiwaan gelinaya isma diiwaan gelinayo aad iyo aad bay diyaar u yihiin fariintoodina waa kuwii halka ka sheegay war xun oo luguwaa ninkii wax kale sheegi jiray de halkaasuu maanta ka arkayaa. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdilaahi Ibraahin Habane ayaa caasimadda Hargeysa ku daafuray mashruuca waxbarashada barbaarinta ubadka oo lagu soo kordhiyay dugsiyada hoose dhexe ee dawladdu. bilowga mashruuca dhisitaanka dugsiyada barbaarinta ubadka oo lagu soo kordhin doono dugsiyada hoose dhexe ee dawladdu waxbarashadii ay bixin jireen ayuu wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ka dhagax dhigay magaalada Hargeysa. hirgelinta horumarinta waxbarashada asaasiga ah sidii daayirta reer Soomaaliland intii dugsiyada hoose dhexe waxbarashadooda aanay bilaabin ay u heli lahaayeen waxbarashada hoose ee waxbarashada asaasiga ah. mashruucan oo hirgelinayaan ururka hayda agaasimo ku-xigeenka ururka hayda mashruucan hirgelinaya ayaa si qoto dheer u faahfaahiyay maraaxilka uu mashruucani soo maray iyo ujeedada looga goleeyahay. agaasimaha waaxda dugsiyada hoose dhexe ee wasaaradda waxbarashada Marwo Raxma ayaa sharaxday faa'iidada ay bulshada Soomaaliland ka dhaxlayso mashruucan ibafurka ah. mashruucani horta waa mashruuc dalka aad u anfacaya markaynu eegno sababta iskuulada dawligu markii uu horeeyay inuu ka hirgelino barbaarinta ilmaha ama keejiga waxaynu naqaano intaan ilmaha la geynin koobaadka 2 sano in ilmaha la soo barbaariyo deetana isagoo wax dhigashadii ama quraankii iyo wax walba fahmaya si uu ulada ula fadhiisto. waxaanu ku bilaabi doonaa 7 iskuul oo Hargeysa waa pilot mashruucu 7 iskuul haddii si wanaagsan noogu hirgasho waxaanu rajaynaynaa dalka inta kale inaanu gaarsiin doono. gudoomiyaha waxbarashada aaga galbeed ee wasaaradda waxbarashada ayaa tilmaamay qiimaha ay bulshada Soomaaliland u leedahay hirgelinta waxbarashadan. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdilaahi Ibraahin Habane ayaa si waayeelnimo ah uga warramay maraaxilka tacliinta Soomaaliland soo martay iyo kobaca ku yimi waqtiga xilliga xiga. wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa dugsiga Sheekh Bashiir ee caasimadda Hargeysa ka dhagax dhigay bilowga mashruuca dhisitaanka dugsiyada barbaarinta carruurta ee dugsiyada dawladda lagu soo kordhiyay. nidaamkan waa nidaam soo dhaweynayno carruurta waxa la bari doonaa quraanka waxa la bari doonaa farbarashada waxa la bari doonaa akhlaaqda gabdhaha wax u dhigi doona si midkarnimo ah ayaa loo maamulayaa oo dhaqanka iyo asluubta ku salaysan baa loo maamulaya. magaalada Berbere xarunta gobolka Saaxil waxa aas loogu sameeyay 3 carruur ah oo badda Berbere ay liqday
madaxda gobolka saaxil ayaa tacsi u diray qoyskii qaraabadii iyo asxaabtii saddexda caruur ah ay ka baxeen iyagoo ka warramay khatarta ay leedahay baddu sida uu warkan magaalada berbera nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud saddex carruur oo ay dadoodu ka hooseyso 10 jir ayaa ku geeriyooday xeebta loo yaqaano Nagfiishta amaba goobta ay ku soo xidhaan doonyaha kalluumaysiga ee magaalada berbera kadib markii ay maalintii shalay ahaa halkaasi u tageen si ay ugu soo dabaashaan gudoomiyaha gobolka saaxil taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha iyo taliyaha qaybta booliiska ee gobolka saaxil ayaa ka hadlay iyagoo tacsina u diray eheladii iyo qaraabadii ay carruurtaasi ka baxeen sidoo kalena uga digay guud ahaanba bulshooyinka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland inay iska ilaaliyaan goobaha halista ah ee aan badda laga galin waxay saddexda carruur ka koobnaayeen howlgal bay ka sameeyeen maamulka gobolku iyo maamulka dekedda kalluumaysiga iyo ciidanka baddu iyo ciidanka booliiskuba howlgalka laga sameeyay wuxuu suuro geliyay in la soo helo laba kamida dhalintii oo looga helo meel ku dhow dekedda kalluunka agteeda sidoo kale waxa suura gashay iyadoo la joojin howlgalkii ilaa habeenkii lagu jiray ilaa iyo intii waagu ka bariyay ayaa saacadu markay ahayd 6:00 subaxnimo waxa mar labaad suura gashay in iyadana la soo helo meydkii saddexaad ee ilmihii yaraa halkan waxaanu sugu nimay inaanu baaq ka jeedino sida loo isticmaalayo badda iyo baddu waxay tahay marka ugu horeysa baddu dadku waxay u yimaadaan ama ciyaalku waxay u yimaadaan inay aan ka xaraabaysan laakiin baddu qofku ku soo talagelaya ama ha weynaado ama ha yaraade waa inuu badda markuu soo qabanayo ku soo talagala inuu meel cadow jooga tagayo badduna sideedaba wax ku dishaa laba nooc wax ku dishaa marka ay baddu ay marna caariyeyso marna soo buuxinayso waxbay ku dishaa oo qofku isagoon ogeyn bay ku soo buuxisaa oo weydaarataa dabeetana meeshii uu ka yimi haddeer bannaanayd baa buuxsataa intuu biyaha ku jeedo markuu isagaa baxbu doona iyay dabeetana u bixi kari waayo ilqada taa way ku dishaa mid kalena way ku dishaayoo baddu waxay leedahay godad bay leedahay ama godad dhagxaneed ha ahaadaan ama godad kaloo ciidaho wax qodeen ha ahaadaan qofku isagoo dabaal aqoonin oo dhul iska maraya ayuu dabeetana godkii ku dhacaya dabaashana ma yaqaan taana wuu ku dhintaa waxaan tacsi u dirayaa qoysaskii ay ka dhinteen saddexda carruur oo ay ka baxeen ayaan u tacsiyeynaya ilaahay inuu samiriyo iimaan ka siiyo in baddu caariday oo markaa yararku ay baddii ay moodeen meel bannaan ay iska sii socdeen intii maryaa dhigteen adigu 10 subaxnimo meelahaas ay qiyaastu ahayd ay iska sii socdeen markay socdeenna dee baddii unbaa ku soo carartay dadweynaha sharafta markaa waxaan ka codsanaynaa laba qodoba maalinta jimcaha iyo maalinta khamiista oo maalinta berbera loogu badan yahay loo soo dabaal tago dhalinyarta reer Soomaaliland oo soo dabaal tagaan marka meelaha munaasibka ah ee xooga saarnay ee ciidamada dhignay ee batalaaliya ereyadeeda ee lagu ilaalinayo dadweynuhu dabaal tagaan dhulkan kale ee dhibta leh sida shalay tolay ka dhacday dhibaatadu waxaan leenahay arrinta laga digtoonaado afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiye xasan maxamed cali gaafaadhi ayaa garoonka diyaaradaha cigaal international airport ee caasimadda hargeysa ku soo dhaweeyay oday ibraahim carab jaamac oo ka mid ah madaxda sare xisbiga kulmiye ee dalka ingiriiska sida warka faahfaahintiisa inoogu diyaariyey axmed saki daahir xasan waxaa si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport ee magaalada hargeysa ibraahim carab jaamac oo ka mid a mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga talada dalka haya ee kulmiye gaar ahaana dhinaca waddanka ingiriiska waxaana mas-uulkan madaarka cigaal ku soo dhoweeyey afhayeenka xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mudane xasan maxamed cali gaafaadhi ku-xigeenka minadlayaasha caafimaadka somalilan cabdiraxmaan maxamed axmed doodi la taliyaha wasiirka arrimaha gudaha cabdikariin cabdi aadan gudoomiye hore ee xisbiga kulmiye laantiisa magaalada Cardiff ee dalka Ingiriiska Alaawi Xasan Guuleed iyo maamulka ku-xigeenka madaarka cigaal international airport Cabdilaahi Yuusuf Axmed afhayeenka xisbiga talada dalka haya ee kulmiye mudane xasan maxamed cali gaafaadhi oo halkaasi ka hadlay ayaa ku soo dhoweeyay dalka Somaliland iyo caasimadda Hargeysa Professor Ibrahim waxaan leeyahay marka hore ku soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynayaa magaca afhayeennimada xisbiga kulmiye ayaan kugu soo dhaweynayaa waxaan kugu soo dhaweynayaa magaca waayeelaho muwaadina oo reer Somaliland ayaan kugu soo dhaweynayaa soo dhawow hawsha aad qabatay aad baa lagaga mahadnaqayaa inaad mar labaad xisbigii gudiyadiisii UK aad dib u dhistaan iyadoo duruufo adag ay jireen aad baan meel inta aad maqnayd ahayd 4 bilood
waa lagu xasuusan yahay inaad inteeda badan aad ku howlanayd sidii aad mar labaad maamihii xisbiga dalka UK dhismayaashiisii oo xilligii ka dhacay dib loo cusboonaysiin lahaa mas-uuliyiintan kala duwan ee iyaguna ka qayb qaadanaya soo dhoweynta loo sameeyey mas-uulkan ayaa iyaguna hadalladoodii waxaa ka mid ahaa maanta waxaa sharaf noo ah inaannu halkan ku soo dhoweyno garoonka diyaaradaha international cigaal international airport nin weyn oo qaali ku ah bulshadan somalilan dowladdeeda iyo shacabkeedaba professor ibraahim carab jaamac oo ah nin halgankii hore KSNMta halgankii dambe ee waddanka dib u dhiskiisii halgankii dambe ee muxuu ahaayey axsaabta kulmiye intaba ku suntanaa iyo jaaleedaha reer Soomaaliya dibadaha jooga shaqadoodii waxaan si diiran ugu soo dhaweynayaa jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada madaxda Hargeysa Ibraahim Carab Jaamac mujaahid Ibraahim Carab Jaamac oo runtii qaali ku ah Soomaaliland oo haldoorka Soomaaliland ka mid ah waxaan halkan ku soo dhaweynayaa walaalkay Ibraahim Carab Jaamac oo ah oday si fiican uga soo shaqeeyay kulmiye aasaaskiisii hore aqoonsi raadiskii waddanka iyo hadda guddidii u dambeysay ee Cardiff iyo TUK uu ka ahaa gudoomiyaha guddida gabanqaabada waxaa isaguna halkaasi ka hadlay oday Ibraahim Carab Jaamac oo uga mahad celiyey mas-uuliyiintaasi soo dhaweysay aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa soo dhaweynta diiran ee kalgacaltooyada leh ee sharafta leh maalinkan maanta ay igu soo dhaweyseen aad baan idinkaga mahadnaqayaa waa mahadsantiin ciddii hadda kadib aanu ku aragno dhulkaana tallaabada sharci waafaqsan aanu ka qaadayna hadduu eebba yidhaahdo saddexda carruur ayaa maanta lagu aasay magaalada berbera inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera caasimadda hargeysa ee dalka jamhuuriyadda somalilan waxaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo nidaamka ugu habboon ee maamul daadejinta dowladaha hoose ee dalka cabdicasiis caydiid cilmi yabani ayaa warkan nooga qayb galay kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland socon doona muddo 2 cisho waxa inta uu socdo lagu darsi doonaa qaabka ugu habboon ee lagu gaarsiin karo mashruuca maamul daadejinta dowladaha hoose degmooyinka aan wali gaarin kulanka waxa ka qayb galaya oo loo qabtay meyrada iyo xogayaasha 23 degmo ee la gulayaasha deegaanka ama la iska soo doorto waxa furitaankiisa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland xubno ka socday hay'adaha mashruucan kala shaqeeya wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cabdi Fataax Saciid Axmed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo qoreyti kulankaasi ka hadlay ayaa ka warramay ujeedooyinka loo qabtay kulankan iyo waxyaabaha uu daaran yahay strategiga sidii aan u ballaarin lahayn 8 degmo imika ayay noo maraysaa insha Allah waxaanu doonaynaa inaan ku darno 2 degmo ugu yaraan sanadkan inaynu sii kordhino iyo wax ka badanba anagoo doonayna tusaale ahaan inaan u qaadano saylac runtii ahayd tii success ka ahayd sanadkii ka soo gudubnay 2015 muhiimadda maanta runtan iskugu nimadna wata inaynu maanta sharaxaad badan ka bixino degmooyinka cusub insha Allah ku soo biiri doono sanadkan haddii la yiraahdo taa iyo criteria muhiimadda waxa lagu dooran doono ma waxay noqon doontaa inay noqoto degmo runtii isbixin karaysa oo bixin karaysa 5%kii inay noqon doonto degmo maxaa haydo la soo doortay golaheeda deegaanka shirkeenna wuxuu socon doonaa 2 cisho sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay maayirada magaalooyinka Berbera Boorama iyo Laascaanood waxaana dhammaantoodba hoosta ka xariiqeen sida muhiimka ay u tahay in la dejiyo maamulka dawladnimo si markaasi loo dardargeliyo loona xoojiyo shaqada loo hayo bulshada wasiir ku-xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Jaamac Cabdilaahi Biin oo kulankaasi furay ayaa sheegay in kulankan ka mid yahay qorshayaasha la rabo in dowladaha hoose maamulka hoos loogu daadajiyo si ay iyagu u fushadaan qorshayaashooda gaarka u ah ee ay dejisteen hawshan iyo shirkan muddada 2 cisho ee kooban ee la isugu yeeray waxay gogoldhig u tahay in la idila tashado war sidee wax loo hagaajin karaa xog baa haysaan dhul baad joogtaan degmooyin baad joogtaan shaqaa haysaan maayaro waxa lagaga baahan yahay maayar ku-xigeenna waxa lagaga baahan yahay xoghayo waxa lagaga baahan yahay inaad taladaada sida bulxulada daadejin karo waxaagana maamulo nidaamyadii aad mari lahayd umar gudoomiyaha gobolka Sool Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa xog waran ku saabsan xaaladda guud ee gobolka Sool iyo deegaanada hoos yimaada ay ku sugan yihiin waxa uu siiyay waftigii uu hogaaminayay wasiirka khayraadka biyaha ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland
mudane baashe cali jaamac cabdiraxmaan muuse cumar oo wafdiga noola socda ayaa warka nooga soo diray magaalada laascaanood mudane mustafe cabdi ciise shine ayaa xafiiska gobolkaasi ku soo dhoweeyey wafdigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland mudane baashe cali jaamac waxaana uu warbixin ka siiyey xaaladda gobolka kaasi oo sheegay in guud ahaanba xaaladda gobolku ay tahay mid wanaagsan shacbiga ku dhaqan iyo bulshaduna ay yihiin kuwo u diyaara horumarka gobolkaasi wasiir waxaan ku leenahay gobolka soo gobolka saartay guud ahaan waa nabadgelyo dadku maanta waa maalintii ugu wanaagsan yihiin dhinaca Soomaalilandnimada waxa tusaale u ahaa soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee lagu sameeyay waliba magaalada oo dhamay iyadoo gacmaha haysata ilaa halka laga soo galay ilaa iyo meesha magaalada dhinaca kale looga baxayo sida dadku u heelayeen dadku maanta waxay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan oo ay ka howlgalaan dhinacii diiwaangelinta inay isdiiwaan geliyaan waxaan rajaynaynaa maanta gobolka Sool dadka isdiiwaan geliya inuu noqon doono dad lagu xisaabtamo sida gobolada kale qaar loogu xisaabtamo in dadka reer Sool lagu xisaabtamo insha Allah ayaan rajaynaynaa wadad u helan maanta Soomaalilandnimada wax badan waxa ka bedelay horumar ka socda xukuumaddu ay keentay baa runtii wax badan ka bedelay shacabka waxaan rajaynaynaa inta inaan ka badin wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland mudane baashe cali jaamac ayaa isaguna uga mahad celiyay soo dhaweyntaasi wafdiga uu sameeyay gudoomiyaha ama barasaabka gobolka Sool mudane Mustafe Cabdi Ciise Shine bulshada gobolkan ku dhaqani ay diyaar u yihiin sidii diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada ay uga qayb qaadan lahaayeen indhaha ayaan ku aragnay sida ay maanta isu bedeleen dadku iyo wadcigooda maanta ay boqolkiiba boqol Soomaaliland yihiin doonayaan in wax la qaybsadaan doonayaan inay isdiiwaan geliyaan doonayaan inay helaan xaqoodii ay u lahaayeen inay codeeyaan waa xaq dastuuriga qofka muwaadinka ay leeyahay inuu codeeyo xukuumadduna waxay aad iyo aad ugu dadaalaysaa madaxweynuhu hormuud ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo in dadka kanu ay xaqoodii helaan xaqoodii codeynta xaqoodii horumarka wax kastoo xaq u leeyihiin inay helaan maanta diyaar ayaa loo yahay gobolkuna aad iyo aad buu runtii isu bedelay adiguna nasiib baad leedahay inaad waqti fiican la soo kulantay socdaalkan wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa noqonaya socdaal taariikhi ah oo wax badan u qabtay guud ahaanba deegaanada gobolka Sool cabdiraxmaan muuse TV-ga qaranka laascaanood 200 oo qoys oo ka mid ah bulshada reer Somaliland ee ku dhaqan galbeedka caasimadda dalka Jamhuuriyadda Somaliland ee Hargeysa ayaa la gaarsiiyay deeq raashin ah oo dhameystiran deeq raashin ah way soo direen qaar ka mid ah qurbajooga Somaliland ayaa la gaarsiiyay 210 qoys oo ku kala nool 7 goobood oo ka mid ah deegaanka Malowle ee galbeedka Hargeysa ugu horeyn waxa faahfaahin ka bixiyay deeqdan iyo dadka ay ka timi baa Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Ansiir oo ka mid ah culimada Somaliland oo deeqdan lagu soo hagaajiyay halkan maanta waxaan uga mahadnaqaynaa hablaha Safiya Ismaan Yuusuf iyo Saara Nuur Xasan in Canab Ismaan Jaamac Australia ka soo dirtay hablaha Australia Sydney ka soo diray oo runtii yiriyaan magacayaga la sheegin Nuur Cabdilaahi Maxamuud Ruqiya Ciise Luul Axmed Saara Cabdilaahi Umar oo iyadu Mareykanka ka soo dirtay hablaha horena Ingiriiska ka soo direen in Foosiya Cabdi Faarax Joome oo Ingiriiska ka soo dirtay oo runtii lacagta ugu badan Dahran baa laga soo diray oo uu ka wakiil yahay Ibrahim Xashmal Nuura Cabdilaahi oo Imaaraadka ka soo dirtay iyaduna lacag gaar oo $500 Shamis Cabdi Maxamuud oo $860 iyaduna ka soo dirtay Ingiriiska Kawsar Daahir oo iyaduna Sweden ka soo dirtay $100 yaani waxa weey deegaankan Malowle la yiraahdo oo 7 xubnood ah dad badan ay ku nool yihiin waxa loo qaybin doonaa 210 qoys ayaa loo qaybin doonaa waxba ka tarimayso marka baahida dadkeena loo eego laakiin waa shay agtiisa Ilaahay ku weyn waayo waqti baahi badan ay jirto abaar badan ay jirto ay ku soo beegantay aad iyo aad baa u mahadsantiin wa jazaakumullahu khayran waxaanu leenahay wixii meesha ka soo saarteen wax ka khayr badan Ilaahay idinku bedelo ubadka iyo magaratay baax mushtariga iyo aqoonta iyo dariiqa jannada Ilaahay subhanahu wa ta'ala haydin fududeeyo geesta kale dadka deegaanka Malowle ee deeqdan gaadhay ayaa ka mahad celiyay taakulada la soo gaarsiiyay waayaha waan xanuun badnay oo abaartoona xanuun badnay xalayse waa
roob wanaagsan oo mahad qaba ayaa ilaahayna siiyey hablaha waxaanu ilaahay u baryaynaa noo soo diray noo soo gargaaray in ilaahay aakhiriya adduunkana u gargaaro dembigooga iyo kii waalidkoodna alla dhaafo intii loo soo qacan qabatee nooga soo qaadayna ilaahay waxsan in ilaahay la kulmiyo afiya aakhiraba haddaa roobkii nagu sinteen guulaystayaal culimiya cuquul dawlad iyo dadkaba inta keentayey waa noo guddoon iyo gacan ilaah dawgiin ha jabo cimrigiin ha jiro intaa waxaad nala daba taagantihiin mucaawanooyin aad iyo aad u wanaagsan oo gargaar ah ilaahay ha idinku bedelo meel khayr leh waan idiin soo ducaynaynaa sheekh aadan eena soo gaadhsiiyey kaalmada eena xidhiidhsiiyeyna aad iyo aad baan u mahadinaynaa waxaanu leenahay hablaha soo dirayo ilaahay idinkiisa si fiican baa noogu soo dirteen sheekh aadan baa noogu soo dhiibteen si wanaagsan allah idin mariyo awlaadda allah idinku barakeeyo aakhirada allah idinku wanaajiyo maqalkiina ka soo saarteenna maqal barakale allah ka dhigo warkii oo ay kala socoteen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland studio uu ku leeyahay caasimadda Hargeysa daawadayaasheeda mudan mahadsan qadarinta sharafta iyo karaamada naga mudan intaas ayuu ku eegay warka telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waaniga Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiida iyo dhammaan akhyaarta igala qayb qaadatay duubidda diyaaridda iyo isku dubaridka warkan oo meel kasta joogtaan bay ku dhaafaya salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi تعالى وبركاته.